safarka noo yimid wuxuu ahaa safar shaqo waxaan ka soo qayb galay shir sanadla ah oo sanadkiisii labaad ka qabsoomayay xarunta bangiga adduunka oo la yiraahdo toddobaadka sharciga cadaaladda iyo horumarka shirkaas baan runtii ka soo qayb galay shirku waxa weeye waa shir sanadla ah wuxuu bilaabmay sanadkii hore 2018 inta badan waxaa ka soo qayb gala maxkamadaha sare ee adduunka wasaaradaha cadaaladda xafiisyada xeeraalinta iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha sharciga iyo cadaaladda ayaa runtii ka soo qayb gala marka kulankaas baan imid in dhawaan Kismaayo xaalad baa ka taagneyd mas'uuliyiin kala duwan baa rabay inay u safraan qaarkood waa la garoonka lagu hor istaagay inay u safraan ama ay tagaan in xisbi kamid ah xisbiyada madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif uu hogaamiyay dacwad bidii soo gudbiyay taasoo kale maxaad ka yeeshay waa run weeye waa ku soo waday dabcan waa markii ugu horeysay xisbi kamid ah xisbiyadu oo dacwad soo gudbiyay maxkamadda sare dacwaduna marka cid soo gudbiso waxay martaa habbay martaa marka qof soo dacwado dacwada oo qabo waa in loo gudbiyo dhinacii kale ee laga cabanayay dhinaca kale waa inuu ka soo jawaabo kadibna maxkamaddu waa inay mudayso dacwadaasi dhageysigeedii dacwadaasi dabcan waxa soo gudbiyay xisbiga himilo qaran waxa soo ka cabanayo dacwad maamul oo kaga cabanayo hay'adda dawladmaadka rayidka ah dabcan dacwadii maxkamaduna waxay u gudbisay cidii laga cabanayay waa ka soo jawaabtay dacwadii waxa hadda hadsan dhageysigeedii waxaana filayaa maalmaha soo socda in dacwadaasi insha Allah ta'ala ay maxkamaddu dhageysan doonto waan gartay in waa tilmaantay in haata kanaada procedure-kii ama nidaamkii sharciga aad mariseen in horena waad xustay in maxkamaddu ay tahay ama hay'adda garsoorka hay'ad loo soo dacwoodo laakiin guddiga garsoorka marka intaynaan u iman salahaan oo kale adigoo kale xiliyada qaar waxa jirta dood odhanaysa waa gudoomiye maxkamadda sare madaxweynaha baa soo magacaabaya dadka qaar su'aal gelinayaba dhexdhexaadnimadii iyo waliba sida garsoor iyo cadaalad u heli lahaayeen iyo doodaasi maxaad kaga jawaabaysaa horta inta adduunyada haddii aad eegto garsoorada adduunyada jira Mareykankan aynu joognana ku daro gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha labadaba waxa soo magacaabay madaxweynaha iyo adduunyada kale oo dhan laakiin waxa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay processka la marinayo magacaabista madaxweynaha kadib hanaanka ay marayso ayuun baa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay laakiin adduunyada intan ogahay intan ka akhriyay dalalka dunida meelaanu madaxweynuhu soo magacaabin gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha maxkamadda sare waxa filayn aad u yartay waan gartay su'aal kale haddaan kaasi weydiiyo taa cadaalad oo kale in marka laga yimaado in gudoomiye maxkamadda sare joogo dabcan maxkamadihii jiraan gudoomiyaal maxkamadda jiro garsoorayaal jiraan waxyadana lagama maarmaan guddida cadaaladdu inay jirto wada dabcan guddi go'aankii gaaraysa kiisaskii eegaysa dabcan garsoorayaashan iyo ciidan cadaaladii gacanta ku haysanaa shaxmarintooda iyo abaalmarintooda iyo wuxuu dhan gacanta ku haysan guddida ma la yagleelay si muhiimadeedii maanay muuqan guddidaas horta waxa weeye guddi runtii aad iyo aad ugu muhiim ah guud ahaan garsoorka iyo dib u dhiskiisa iyo madax banaanidiisa intaba waa guddi aanu garsoorku u hana qaadi karin sida la rabo inuu hana qaado haddii aan la helin wali guddidaasi ma jirto laakiin hawsheedii waa socotaa waxaan ku rajaynahay waqti dhow insha Allah ta'ala inay dhamaan doonto ta madax banaanida haddaynu eegno dabcan siyaasadii ma istaagayso way soconaysaa gudoomiyaasha xisbiyada hadday noqoto iyo xubnihi kale siyaasiyiintii mucaaridka way cabanayaan dooda inta ay imanaya waxaad leedahay markaa waad madax banaanahay oo maanta go'aanadii iyo garsoorkii maxkamadda sare iyadoon xukuumaddii waxba saameyn ku yeelan bay go'aan gaari kartaa 100% runtii garsoorka waxaana lagu dhaariyay oo ku dhaaranay inaan ku shaqeyno sharciga oo kaliya inaanu dacwadaha u dhageysano si aan cabsi lahayn anagoon cidna ka cabsanayn isla markaana anagoon cidna u danaynayn oo ummadii cidii isdacweynaysay ama ha noqoto arrin siyaasadeed ama ha noqoto arrin maamul ama ha noqoto arrin ciqaab ama ha noqoto arrin madaniye inaanu si dhex ah oo hufan aan u dhageyso dabcan tan ummadda u damaanad qaadanayna u ballan qaadayna waxa weeye waa taas weeye waa dhexdhexaadnimo mana jirto cid noo yeelin karta go'aamada aanu gaarayna iyo sida aanu u gaarayn oo aan sharciga ahayn kaasi waxa uu ahaa Baashe Yuusuf Jaamac gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya oo xarunta VOA-da ee Washington ugu waramayay Cabdi Xakiin Shirwac.